maanta waxaan jecelahay inaan walaalahayga Soomaaliyeed la wadaago xanuun runtii inta badan la soo weydiiyay inaan ama video ka qabto ama aan ka hadlo on page-kayga soo dhigay xanuunkaasi waxa weeyaan waa xanuunka waxa loo yaqaano niyad jabka oo kale niyad jabku wuxuu yahay Ingiriis ahaan waa depression laakiin Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa niyad jabka waxaad moodaa in dadku inta badan ay garan karaan ama ay marka la yiraahdo niyad jab inuu qof ka fikiro qof niyad jabsan inagu inta badan waxaan ka fikirnaa ama se waaqaca la isweydiiyaa inuu qofku waxyaabaha noloshiisa saameeyaan inuu ku niyad jabo sida ama wax uu doonay uu gaari waayo waxay kaasa laakiin waxaan jecelahay maanta inaan si cilmiyeysan uga hadlo depression ka inkastoo ka bixi karin laakiin waxyaabaha keena in la fahmo baan jecelahay waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin mid kamid ah baa runtii dadku aad loo yaqaan laakiin waxyaabaha keena waxyaabo aad u fara badan waxa kamid ah waxyaabaha depressionka ama niyad jabka qofka ku keena macdanta jirka bini'aadanka ama fitamiinada ama waxyaabaha qaarkaas qofka bini'aadanka haday ku yaraadaan ilaahay wuxuu ugu talagalay jirkeena macdano fara badan baa ku jira shaqooyin fara badan qabta macdanahaasi qaar kamidii marka ay yaraadaan ama ay naaqusaan qofka wuxuu dareemaa daal fara badan tacbaan buu dareemaa wuxuu dareemaa niyad wuxuu dareemayaa awood darri fara badan calaamadaha depression kana waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah qofku inuu mar walba caajis dareemayo tacbaan daal waxyaabaha laakiin isagoo saatahay wuxuu saameeyaa in laga dareemo calaamadii niyad jabka waxaan ka hadli doonaa niyad jabka kuwa vitamiinisku markay yaraadaan waxa ugu badan noocyada qofka bilaadanka macdanta ku yarata sida vitamin D B6 B12 iyo iron oo kale marka ay yaraadaan qofku wuxuu dareemaa calaamadaha niyad jabka taas waa mid talabaad waxyaabaha kale waxa weeyaan xaaladaha qofka bilaadanka uu ku jiro xaaladaha marka la leeyahay waxa weeyaan qofku ka soo qaad wuxuu ahaa qof family leh nolol fiican ku jira haddii labada qof kala tagaan oo kale furiin oo kale dhaco uu saameyn kara sidoo kale wuxuu saameyn kara qofku hadduu hanti badan lahaa oo hantidu baaba'do kale sidoo kale waxyaabaha inta badan lagu garan karo waxa caruurnimadii oo kale qofku haddii uu carqalad adag ku soo koray family problem hadduu carqaladahaasi ay kuwa intii markii uu yaraa wax badan la saameyn jiray ama familigiisa uu ka goonaa ama cid kale waxyaabo ay gaartay adu family childhoodkiisa ama ciyaalnimadiisa koritaankiisa waxa kale oo saddexaad ee ugu badan ee keenta waxa kamid ah hormoneska maskaxda laga soo daayo oo bilaadanka naturally ama badan kara ama yaraan kara hormoneskaas inta badan waxay noo qabtaan ilaahay maskaxdeena uu ku keenay in shaqooyin qabtaan qaar waxay ka shaqeeyaan hadalka iyo nolosha bilaadanka qaar waxay ka shaqeeyaan farxadda qaar waxay ka shaqeeyaan activity-ga qaar waxay ka shaqeeyaan hurdada qaar waxay ka shaqeeyaan aad bay u fara badan hormoneskaas marka qaar kamidi hadii ay bataan ama ay yaraadaan xaaladaha caafimaad waliba kuwa maskaxda ku dhaco kala duwan laakiin marka niyad jab ka hadlayno qaar kamidi hadii ay yaraadaan ama bataan uu dareemo qofka xaaladaha depressionka sidaas baa inta badan ugu kamsan waxyaabaha keena sidoo caawin kartaa qofka depressionka qaba markaad aragto inkastoona laga bixi karo tabigu weyn yahay laakiin walaalay waxa la wadaagi karaa qodobo yar oo fudud waxa weeyaan dadka niyad jabsan waxay jecel yihiin qofka soo dhaweysta maxaa markaan leeyahay soo dhaweysta waxa weeyaan qofka xiriir fiican la yeesho hadduu ma saaxiibka yahay oo aabihii uu dhintay ama walaalkii ama qof jecel dhintay inaad qofkan ka ilaaliso cidlada waxa ugu badan dadka ku badiya xanuunka waxa weeyaan markay kaligood cidla tagaan bay ku soo ceshadaan wixii ama uu ka bixi waaya in aad asxaabtiin aad group samaysataan la sameeyo qofkan la mashquuliyo maanta adigu qofka kale biraha ka xayo taas wuxuu wajahaysaa in aanu firaaqo isku helin ama aanu fikirin marka dambe uu daalaya marka qaar baa jecel in hoteelada la geeyo qaar baa waxay jecel yihiin in waxyaabaha ay daawadaan meelaha qaar adu qofka in firaaqa laga ilaaliyo oo muhiimsan talabaad waxa weeyaan in qofka la dhageysto weeyaan marka la qofka la dhageysto waxa weeyaan qofka markuu ka hadlayo dhibkiisa wuxuu qofka uu ka dhageysiga badan yahay sida caadiga ah oo ka jecelnahay marka annaanu hebelniyo ha uu dhageystaa waxa qofka marka aad dhageysanayso wuxuu dareemayaa relief waxa weeyaan qofku wuxuu dareemayaa inuu bogsanayo kale kugu fatahmayo markuu dhibka kaaga waramo markuu ku sheekayo marka si serious ama xaalad u wareysato wuxuu dareemayaa inuu nasanayo wuxuna doon uu ka jeclaan doona dadka kale waxyaabaha kale loo baahan yahay laga caawiyo waxa weeyaan hadii uu shaqadiisa aad aragtaan oo ka sagsaagaysa in laga caawiyo inaga sida caadiga dhibka wax weyn qofka haduu shaqooyin ka daaho
qofaad ku taqaanay activity qofaad ku taqaantay arday fiican oo ahaa markaynu aragno la isma weydiiyo laakiin markaaba canaanta la saaraa ama waxa la oranayaa hebel balwadu bilaabay shaqadii ma yimaado waxa laakiin qofina kama hadlo qofkan maxaa ku keenay qofka ka soo bilaadan uu jecel yahay nolol fiican ku noolaado inuu soo kalaho inuu shaqaysto jeceshahay laakiin eedda qofka inaad saarto maaha waxa weyn waa inaan saarnaa dhibka haysta waa inaan ka soo saarnaa aan keenaano way qofka wada taqaan markii hore nolol fiican buu ku noolaa uu shaqaysan jiray tantii taas waa mid in qofka inta badan waxay dareemaan dadka dhibasha ka qaba galti waxa weeyaan dambiil oo kale qofku inuu dambi galay inuu wax badan ka qomamayaan waxa ugu badan khusoo noqda wuxuu dareemay rajalaan wuxuu dareemay dambi inuu leeyahay wuxuu dareemay inuu ka nasiib xun yahay dadka kale hal goor waxay arkaan dadka kale ee qeyrkood heerka ay gaareen wuxuu qoranayaa anigu hadaan ficnaan lahaa saaxiibkayga caynkaasa waxay dareemaan in asalaf simkooduna uu yiraahdaa kalsooni isuma qabaan waxba kuma sheegi karaan wax kasta wuxuu oranayaa haduu doono in wax ka hadlo qalad baan galaya waan qaldanahay marka dambe dadku saxaan boornay wax waan garanay inta badan waxay ka fikiraan qof kasta inuu u dareensan yahay inay qof xun yihiin ama wuxuu qoranaya wax ka fikiraya qofkaasi wuxuu ka fikiraya in tahay qof nolosha ka dhacay wuxuu ka fikiraya in qof xun tahay something inta badan wariga waxyaabaha ugu badan maskaxdooda ba kamida marka inaan caawina ugu misan in kastoo jeclaan doono in ka hadlo calaamadihiisu ay aad u farabadan yihiin hanoo baahay mawduucyo farabadan laakiin waxa jeclaan lahaa in qayb waxa keenay ka hadlo iyo calaamadaha ay isku arkaan hurdada kala ku yaraata intoo kala inta badan yaraata warwar farabadan inta badan waxay ka warwaraan mustaqbalkooda waxayna ka qoomamayaan noloshoodii soo dhaaftay halka qofku ugu fiicayeen ka warwarin wixii ku soo dhaafay laakiin iyagu waxay hadii goor ka warwarayaan mustaqbalka dambe iyo qaladaadka ay galeen halka qofku ka fikir lahaa inuu mustaqbalkiisa sii wato waxaana fiican in iscaawinantii aan caawin karno markasta anigu waxaan diyaar u ahay in ummadda intii karaanka aan u shaqeeyo qofkii doonaya inuu su'aal weydiiyo ama aan xanuunada kala soo xiriiro waayo video kuma dhameyn karayo ama dareemay familkooda ama isagu doonay wax ku ogaado waxay kala soo xiriiri karaan lambarada ku qoran shaashada ama website page-kayga oo ah Dr. Cabdiqani Askar insha Allah halkaas aad kala soo xiriiri doontaan aad inoo u mahadsantiin mataqaana dhageysiga iyo walaalaha iga duubaya iyaguna ummadooda u shaqeynaya walaalnimada lagu duubay iyaguna aad